dadka waxaan dheerahay waa surada mada dalkiyo dibadaba ninkaagibaanahay. munaasabadan oo ahayd mid ballaaran isla markaana ay soo qabanqaabiyeen dhalinyarada beesha Surre ayaa lagu dabaaldegayay 3 sano guurada calanka beesha Surre. munaasabada oo ay goobjoog ka ahaayeen odayaasha dhaqanka dhalinyarada haweenka iyo qaybaha kale ee beeshaasi ayaa waxa taageero weyn loogu muujiyay maamulka Somaliland. ugaaska beesha Surre ugaas Cabdullaahi ugaas Aadan ugaas Xaashi ayaa munaasabada ka sheegay inay ciidamo u dirayaan Somaliland si ay u difaacaan dawladnimadooda. wuxuu sheegay in sidoo kale xere ciidan ay ka sameynayaan magaalada Muqdisho si ay ciidan badan oo difaaca jiritaanka Somaliland ee halkan uga abaabulaan, taasina aysan ahayn mid ay qarsanayaan. waxaan leenahay soo soocma beesha idin la midka ah ciidamadeedii waa soocatay waxayna ka dagaalamayaan Sool. waa in ciidamada qalabka sida ee direed ay soo socmaan oo aadaan gobolka dalka Somaliland si degdeg ah waxaan uga sugaynaa Somaliland inay aadaan beelaha direed ee koonfurta. waxaan ka rabnaa waa in aad idinkuna guddi ku soo darsataan ciidanka Surre meeshaas aadaya oo naga dhab ah waa in aad ciidan ku soo dartaan. magaalada Muqdisho waxaa laga samaynayaa bar xero ciidan oo bar ayaa laga samaynayaa cidna laga gaban maayo. dalku 91 ayuu dib ugu laabtay ilaa Gaarisa waxa dabaaldeg socda waad arkaysaan. waxa meydkayagii lagu taagan yahay TikTok la isku soo sawiraya waad arkaysaan. arko qarshay waa inay u dambaysaa. waxaan intaa weliya khudbada Faarax Macallin jeedinaya ayaan dhageystay. Faarax Macallin Dawaara wuxuu yiri galad dagaalka Soomaaliya madaxweynaha looga dhigo waa la guuleystay buu yiri meydka iyo maxaabiista la laynaya asagoo raalli ka ah. Faarax Macallin waxaan u sheegayaa haddii daaroodku 91 jecel yahay wuxuu jeclaan doonaa 2023 hadduu 91 jecel yahay 2023 waa jeclaan doonaa. waxaan idin leeyahay fadhiga ka kaca dal iyo dabadba xeere milatari baanu ka samaysanaynaa Muqdisho gudaheeda oo ciidamada direed ee taakulaynaya walaalahood xeere loo furayo. xeradaasi waxay samaynaysaa gobollada degmooyinka dhammaan tuulooyinka koonfurta Soomaaliya waxa ay ka keeni doonaan ciidamadii halkaa aadi lahaa. dagaalku waa bilow dhammaadkuna waa noo garoowe. annaga ballanteedu waa noo halkaas. haddii ilaahay idimo ma daawanayno ma dhowranayno ma jooji meel kastana waa ka dagaalgelaynaa. hadday nagu kalifto Muqdishoan ka dagaalgelaynaa. dhanka kale dhalinyarada munaasabada soo qabanqaabisay ayaa u mahad celisay dhammaan dadkii soo qabanqaabiyey munaasabadani waxayna ka hadleen maalinta calankooda. aad u weyn halkan ku jirnana waxa weeyaan dhinacyo badan buu taabanaya. walaal baana leenahay ehelna waan leenahay. waxaan intaa ka codsanayaa shacabka iyo dhalinyarada mas'uuliyiinta ugaasyada dhalinyarada in la garab istaago madaxdooda iyo dadka howlwadeennada u ah halgankaas iyo mataqaanaa barnaamijyadaas. waxaan rabaa halkan in aan ugu mahad celiyo walaalaheena qurba joogta oo xalfadan aan aragteen quruxda badan nagala qayb qaaday. qurba joogtaas oo kala ah Awees Ciiltire Abubakar Cali Sahra Cabduqaadir Farxiye Sabriye Cabdullaahi Sabri Ifraax Sabri Cusmaan Maxamed Saciid Sheekh Yuusuf Raqiib Cali dhammaantood waa qurba joogta nagala qayb qaadatay xalfadan qurux badan aad wada arkaysaan. hal magac baa la sheegaya hal magac bas hebel baa naqaanaa iska dhaaf baa lagu leeyahay. dal shay ku dhimana laakiin maanta bacdayna waa anaga min Surre iska leh min Surre baa iska leh bacdayna hadda maanta bacdayna sharaf bay noo tahay waa lagu xusayaa markasta siyaasada laakiin hadda cid ku taqaana male waa adiga iyo labadaada cunus ka soo qayb gashay meeshaan wiilasha iyo gabdhaha waxaan leeyahay gacmo furan ku soo dhawaada. anigu waxaan ka mid ahay tiimkii qabanqaabada aad iyo aad ugu dadaalayay. عدك يا
dekada burburiyo burciyo booramiyo dugdheer halkaas waxaa lagumayo laadi karin halyeeyadi reerisaan qaybka reer direed. munaasabadda waxaa qayb weyn ka qaadanaya fanaaniin kala duwan oo heese kala duwan ka qaadaya iyadoo sidoo kale munaasabadda si joogtaa looga daarayay heese kala duwan oo fanaaniin Soomaaliyeed oo dalka iyo dibadda jooga ay ku ammaanayeen maalinta calanka beesha surre. Cabdixiin Caylaawe, SMS TV, magaalada Muqdisho. fogeysiis farxad leh haddii aad joogtid dalalka midowga Yurub, UK, Canada, Australia ama New Zealand xawaalada World Remit waxa ay free ka dhigtay dhammaan lacagaha loogu diray Premier Wallet ayadoo ku gaaraysa in ka yar 5 daqiiqo ka faa'iideyso fursadan oo lacagaha ugu dir ehelkaaga iyo dadka aad jeceshahay Premier Wallet.